بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada iskuulka itaal waxaa si toosa noogu bilaabanaya buuggeena koowaad ama cashirkeena koowaad Microsoft Office Windows 7 waxaana inii soo jeedinayaa Ustaad Abubakar waxaana cawda ka bilaabi doonaa hadii la yiraahdo page-keena saddexaad ayaan ka bilaabi doonaa meesha ka bilaabanaya practical page-kooda iska hordhaci ahayaan si toos ah waxaan ugu bilaabanayaa cashirkeena practical waxaan ka bilaabaynaa how to turn off the computer waa page-keena saddexaad cashirkeena waa kii koowaad waxaan ka bilaabi doonaa how to turn off the computer macnaheedu maxaa waaye sida loo damiyo computerka kuu daaran yahay markaa rabtid inaad damisid qaab loo dashaa jiro inaad meesha switch button ku dhufatid maaha marka waxaad ku daminaysaa qaabkan aad ku daminaysaa ilaa 3 qaabaa jirta 3daas qaab ayaa isticmaali doontaa midkii kuu fudud adiga qaab koowaad maxaa waaye inaad ku dhufatid click start button waxaa ku dhufanaysaa start button taa loo yaqaanaa meeshas ayaa loo yaqaanaa buttonkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa balartan ku hayo waxaa loo yaqaanaa start button ayadaa waxaa ku dhufanaysaa ayaa dhehaysaa click aad dhehaysaa start button markaa ku dhufatid kadib haddana waxaa sii dhihi doontaa click shutdown ku dhufo hadda inta ku dhufano computerkeena wuu naga dami doonaa waa qaab koowaad muxuu ahaa start button ku dhufo haddana kusii dhufo shutdown waa qaab koowaad u dami karta computerka qaab labaad jirto waxaa isla taaban doontaa Alt plus F4 maxaa isla riixi doontaa Alt plus F4 aan aragno Alt waa tan ahaa F4 na waxay ku taalaa foorta dushiisa aad ka heli doontaa keyboardkaada computerka Alt qabanaysaa kadib maxaad riixaysaa F4 aa la qaban doontaa marka computerka maxaa dhici doono kadib maxaa sii riixi doontaa enter aan aragno waa tan balartas ayaa ku dhufa doontaa ayaad enter ka dhigi doontaa Alt plus F4 markaad taabatid enter aad sii taaban doontaa computerka wuu sii dami doonaa order mase press waxaa riixyaa lagu dhahay Windows key then right arrow plus enter Windows key riix right arrow riix kadibna enter sii riix Windows key kana baa loo yaqaanaa macallin kana maxaa loo yaqaanaa right arrow waa loo yaqaanaa kan baa riixaysaa keyboardka kadib kan isla qabanaysid macnaha inaad isla qabato lama rabo markaa hadda tan waa la isla qabanaa Alt markaa qabat kadib waxaa sii qabanaysay F4 isla qabanaysid kan hadda Windowska riixe kadib waxaa riixa right arrow kadib waxaa sii riixi doontaa enter sii riixi doontaa macnaha wax isla qabaa kuma jiraan waxaan ugu gudbaynaa intaas sida loo damiyo computerka saddexdaas qab ayaa ku damin kartaa inaad ku damisid start button inaad tagtid kadibna shutdown aad tagtid qaabka labaad oo Alt plus F4 qaabka saddexaad oo ah Windowski markaa riixdid kadib kusii dhufo right arrow kadibna enter kusii dhufo halaas waxaan uga baxaynaa sida computerka aad ku dami lahayd waxaa noogu xiga waxa la dhahaa what is standard icons maxaa loo yaqaanaa macallin standard icons waa 5 aan dhahnay 5tan shay computerka marka Windows lagu shubo ayay si toos u imaan doonaan 5 shay oo 5 standard icons jiro waa kan koo oo loo yaqaan user files kan ah computer ama my computer kan ah network 3 recycle bin 4 iyo control panel 5 shay maxaa loo yaqaanaa 5 shay waxaa loo yaqaanaa 5 standard icons marka 5 standard icons computerka Windows 7 marka lagu shubo hore ka soo qaadan doonaa 5 standard icons loo yaqaan document ama user files kaas loo yaqaanaa computer network recycle bin iyo control panel 5 shay ayaa loo yaqaanaa aan ka sii soconaa marka how to hide marka how to show si loo muujiyo orama hide loo qariyo lagu leeyahay standard icons buuggeena page-ka afraad soo gediso how to show or hide standard icons aan ogahay sida loo qariyo ama loo muujiyo standard iconska waxyaabahan standard icons lama dhaho kuwa waa la delete karaa laakiin kuwa ma la delete karo marka 5tan shay ayaa waxaa loo yaqaanaa 5 standard icons waxaa la rabaa marka inaad soo muujisid marna
aad qarisid waxaa lagu dhahay right click ku dhufo on taskbar blank area meel banaan oo taskbar desktop kamid ah desktopka waa noo kan ahaa right click ayaa ku dhufanaya meel banaan ayaa imaanaysaa oo desktop kamid ah right click aa meel banaan maxaa loo jeedaa macnaha meelays wax ku oolada kan hadda imaatay right click dhahay wax laga rabo marka meel banaan imaanay kadib waxaa dheh right click aa leedahay kadib waxaa ku dhufto kaliya waxaa ku dhufataa lagu dhahaa personalize meel ku qoran tahay inta imaanaysaa oo kusii dhufanaysaa inta waxaa kusii dhufanaysaa hadii la janji desktop icons aa kusii dhufanaysaa janji desktop icons kuwan hadda waa tanaa shantii shay oo 5 standard icons ay ahayd shantan shay haddaan contact ka qaado muxuu noqonaa wuu qarsooma contact ka qaado muxuu noqon doonaa wuu naga qarsoomi doonaa hadda haddaan saddexdaa shay ka qaado maxay noqon doonaan inay naga qarsoomaan waa imaanaa hadda maxaa ka maqan meeshii saddexdii shay waa ka maqanta okay saan usoo ceshanaa marka personalize kusii dhufanaa kadib maxaa leeyahay janji desktop icons kadib maxaan dhahaa computer waa tigaan soo saaranaa user files tigaan saaranaa networkna maxaa sameynaa tigaan sii saara doona kadib maxaan dhahaa haddaan labadan keer haddaan kasii qaada iyadana waa sii qarsoomi doonaan marka saasaa loo muujiyaa loona qariyaa standard iconska ama waa soo muuqsan kartaa ama waa qarsan kartaa adii lay ku xirantaa marka waxaa noogu xiga how to arrange icons on desktop si la isugu qaabeeyo ama la isugu aadiyo waxyaabaha ku saaran desktopka hadda waxaa ujeedaa kan inuu ku aadan yahay rows and columns inay u samaysan yihiin oo kan iyo kan ku aadan yihiin kan iyo kan ku aadan yahay saa uu la isku habeeyaa marka tusaale kale kan haddaan soo qaadno oo inta dhigno iskuma arrange garaysno kan haddaan soo qaadno inta imaadno iskuma arrange garaysno marka maxaa dhahaynaa desktopka naga imaanaynaa meel banaan ayaa waxaa samayn doontaa right click ku dhihi doontaa right click markaa dhahay kadib maxaa dhahaysaa view aa ku dhufa doontaa view markaan ku dhuf dooranno waxaan dooran doonaa how to arrange icons hadda maxaa dhacay wixii inta saaraa la isku ka aadiyey view right click aa leedahay then maxaa kusii dhufanaysaa view kadib maxaa kusii dhufanaysaa how to arrange icons hadday isku aadinay waa isku kaadsamayaan tigtaas marka waa inaad meesha hubsatid inay isku kaajegaraysayin hadda mid kamid ah hadduu aad arrange garayn xataa ku aadid ku dhaqaaqa macna haddaad arrange garays ka qaadid ku dhaqaaqa because of waxaa kaa xilan waa auto arrange aa saaratay marka meesha tigta dib ku saaran tahay ma la ogola macnaha in wix shashadada ku saaraa meelo kale lagu kala geeyo ama si qaldan lagu kala dhigo waxaa noogu xiga how to hide or show on the desktop icons sida loo qariyo ama loo muujiyo waxyaabaha shashada ku saaran oo dhan hadda waxyaaba badan shashadeedis waxyaaba shashadii iyo muuqda waxaa rabaa inaan qariyo ama aan soo muujiyo saan sameynaa marka right click ayaa leedahay on desktop blank area right click ayaa dhihi doontaa right click markaa dhahday kadib maxaa kusii dhufanaysaa view aa kusii dhufan doontaa kadib maxaad dhihi doontaa show desktop icons tigta hadaa ka qaadne wixii waa iga qarsoomeen waxyaabihii shashada isaara hadda maxaa dhacay waa iga qarsoomeen haddaan hadda ku laato view aan dhaho oo haddana dhaho meesha tigta soo saaro maxaa isoo muuqan doona waxay abiyayeen shashada kuu saarayo dhan waa isoo muuqan doonaan marka asagana saasa u samayn kartaa how to hide or show on desktop icons sida ama waxaa usoo muuji leed ama u qari leed waa shashadan wax kuu saaran inaad soo muuqsato inaad soo qarisidba aday kugu xiran yihiin okay how to run or start an application icons waxyaabahan kuu saaran ama banaanka ku yaala ama gudaha computerka kugu jiraan saa usoo daari leed ayaa lagu ama u kaci leed tusaale kale folderkana imaanaynaa saan folderkan usoo furi lahayn ayaan mataqaanaaye aan naloo sheegayaa maxaa dhahaysaa marka laba qaab aa kusoo furi kartaa ustaadow laba qaab maxay yihiin inaa inta imaatid asaga double click ku dhufeed double click maxaa waaye clicktii ayaa laba goor kusii dhufanaysaa laba goor ayaa ku dhufanaysaa folderka hadda uu noo furmo ilaa folder kasta waxay ku kooban yihiin soo hadday wax kugu jiraan qaabkaas sameyne asagaa imaanaya hal mar click maayaa laba click ayaa ku dhufanaysaa saas ayaa folder kusoo furi kartaa okay qaab kale oo usoo furi kartaa jirto intaa imaanaysaa right click aad leedahay then waxaa sii dooran doontaa open ayaa sii dooran doontaa
qaabkaas ayadana folderka waa usoo furi kartaa waa cashirkeena koowaad oo inii soo jeedinayo ustaad dahabi cashirka labaad insha allah ayaa ku noogu xigi doona aad mahadsantiin